waqooyiga muqdisho dhulkii ku yaalay waagii isla markiiba sagaashameeyadii sagaashan iyo kowdii iyo labadiiba gacantay ka baxeen magacii dawladda cali mahdi ayaa lagu sharciyeystay waa lagu qaatay waa la dhisto dabaqyaa ka dhisan waxaa kamid ah dhulalkii Somali Airline lahayd wasaaradihii wax dhaqan ma jiraan meeshaas yartaahoo dadkii ranchers ku laayay ilmihii ka haray ay degan yihiin oo hadeer shakhsiyaad hadana la sii rabo in la yiraahdo dawladda qaadanaysa dawladda la siinaya maxaa cadeyn waa in dawladda la siinayo waxyaalaha dadka ku dhajinay waxa kamid ah waxa dadka u cadaatay in sidii oo kale shakhsiyaad u qaadanayaan marka adeer waxa way waxaas waxay keenaysaa isku dhufasho iyo isku dhac dadka dhaxdiisa iyo dadku inay kala shakiyaan dhulkii hore oo madaxweynuhu sharci murqad sharciyeysan looga qaaday dadka yaa qaatay dad shakhsiyaadaha la siiyay dad shakhsiyaadaha qaatay dad reeraha qaatay waliba qarin maayo dad reeraha qaatay oo qaybsaday marka waxa weeye hadii reer qaadanayo midka hadeer degan oo sharci kuma degan dawladdan siinaya waxa weeye horta midkii kale madaxda soo celiyo dadkan kaligood dambiga galaaho waa maxay dad kaligood dambi gala oo kaligood la tooganayo maalin walba midaan weydiiyo waxaan war sidaan maxay ku dhacay markaas ay maxkamadda looma joogo magaalada muqdisho maalmo dhaweyd waxa ka dhacay dhinacan Saybiyaana marka la eego banaanbaxyo waaweyn oo rabshado watay oo dad ay ku dhinteen bal arintaasi maxaad ka leedahay wallahi arintaas waxyaalaha aan ka cabsoonayo horta sideedaba anigu ma jecel inaan maaragtay ra'yigayga ku cabiro dad reer isku haysta inaan horta hore xoogaa dhaxdooda ka hadlo waa kuma soomari waa iska ilaalishaa ma jeceli oo la isira la ii aqoonsado inaan reer dhaxdooda dab ku shidayo laakiin runsheedku dab shid maaha waxa weeyo 1990kii magaaladan markii ma fahamtay jabhaduhu soo galeen waxaan xooga saarnay dhulka qaranku leeyahay inaan dadka shacabka ah ku faafin oo aysan dhisan oo aysan u qaadan dalkii dawladii duntay qof walba waxaad qaadan karto qaado hadii wixii yaalay dhax yaalo xafiiska ama guriga dhax yaalay ama isbitaalka dhax yaalay la bilaqaystay inaan bilaqadaas kale oo maarta mustaqbalka dalka lagu darin ayaan ku dadaalnay dadkii loo xil saaray ayaan kamid ahaa dhulal fara badan ayaan gacanta ku hayay dhulalkii aan gacanta ku hayay waxa weeyo magac dawladeeda lagu qaata shakhsiyaadana qaybsaday waxa kamid ah midka airportka oo maanta dabaqyadu ka dhisan yihiin wax garansiyo bixi kara maanta ma jiraan in say guri maaragtay dabdamiska inaan reer qaadanayn ama koox qaadanayn ma fahamtay waxa la qaatay oo la qaatay meeshii la dhihi jiray dhulkii asluubta waxa la qaatay dhulkii dawladdu lahayd oo dhan waxa la qaatay guryihii waxa la qaatay degmo kasta nabad suguddu waxay ku lahayd laba xafiis waxay ku lahayd orientation waxay ku lahayd waxaas guryo ah waxay ku lahayd guryo sakareedaha oo martida gaarka u degto wixii oo dhan dad shakhsiyaadaha qaatay dadka shakhsiyaadka ah oo anaku dadka waxaan markii horeba barnaamijkan ka celinay muqdisho way kala qaybsan qaybta waqooyi iyo waxay u kala qaybsantay iyo bari ma fahamtay waqooyiga muqdisho dhulkii ku yaalay waagii isla markiiba sagaashameeyadii sagaashan iyo kowdii iyo labadiiba gacantay ka baxeen magacii dawladda cali mahdi ayaa lagu sharciyeystay waa lagu qaatay wixii kaloo jabhadda dadka oo ay joogeen jabhaddu dhulka ma qaadan karin waayo jabhaddu sharci ay ku qaadato inaysan jirin ayaan maaragtay aaminsanayn saasaan uga celina dadkii dhulkii marka inta la soo qaatay kaas markii lagu tagay kii gacanta aan ku haynay waxa kamid ah example dawlad timid oo aan dhibaato dhuleed ka shaqeyn ma jirto waxa kamid ah orientationka xamarweyne waxa kamid ah iskaashatadii maaragtay alindiga oo dharka alindiga lagu sameey jiray oo lagu dhiiri geli jiray dadku inay dharkooda aan la bisanayna sameeyaan waayo qofku markuu wax soo saarto cuno ayuu faani karaa oo waxaas ku sameeyeen waa la dhisto dabaqyaa ka dhisan waxa kamid ah dhulalkii Somali Airline lahayd wasaaradihii wax dhaqan ma jiraan meeshaas yartaahoo dadkii ranchers ku laayay ilmihii ka haray ay degan yihiin oo hadeer shakhsiyaad hadana la sii rabo in la yiraahdo dawladda qaadanaysa dawladda la siinaya maxaa cadeyn waa in dawladda la siinayo waxyaalaha dadka ku dhajinay waxa kamid ah waxa dadka u cadaatay in sidii oo kale shakhsiyaad u qaadanayaan marka adeer waxa way waxaas waxay keenaysaa isku dhufasho iyo isku dhac dadka dhaxdiisa iyo dadku inay kala shakiyaan iyo midnimadii iyo wadajirkii aan goobayn inay meesha ka baxaan marka waxay ila muuqataa yaan la fududaynin
dagaal ahliya haddana dib inaan inta ugu noqono dibudhicii foolxumada lahaa oo aan kusoo baaba'nay oo kusoo wiil iyo walaal weyne inaan haddana dib ugu noqono yaan la fasixin kaas albaabkaas yaan nala ku furin albaabkaas waxaan leeyahay albaabkaas waxaa hor jooga madaxda dalka la rabaa inay hor istaagto waxaa kuu soo haray waxyaalo fara badan oo la qabanayo magaalada marka haddii weerar lagu qaado dabdamiska dadka degan waxaa ka dhalan kara dagaal qabiil maxaa uga dhalan waaye wuxuu uga dhalanayaa dhulkii hore oo madaxweynuhu sharci warqad sharciyeysan looga qaaday dadka yaa qaatay dad shakhsiyaadaha la siiyey dad shakhsiyaadaha qaatay dad reeraha qaatay weliba qarin maayo dad reeraha qaatay oo qaybsaday marka waxa weeye haddii reer qaadanayo midka haddeer degan oo le sharci kuma degane dawladan siinaya waxa weeye horta hore midkii kale madaxda ha soo celiyo ha ka soo qaado dad laakiin dhulku waxaa kuu soo haray u baahan kartaa soo ma dawladdu dhulkay u baahan tahay dawladdu iyadaaba dhulkii dhiibaysa waxa weeye waxaad la socotaa ood weyne gacantaa laga baxshay ma fahamti waxaa kuu soo hartay xeryihii ciidamada waxaa kuu soo hartay xeradii bangala waxaa kuu soo hartay xeradii ciidanka difaaca cirka waxaa kuu soo hartay warlaliskii maxaa dalkii waxa dhaqan waa maxay meeshaas keliya oo haddeer maaragtay ilmahaas agoontaahu degan yihiin maxaa madaxda indhaheeda kusoo jeedshay iyadoo intaas laga soo samray waxaa iila muuqataa anigu wixii haddeer ka dambeeya samir inuusan jiri karin waayo haddii midaas lagu sii wado waxa weeye waxaa qasaba marka dadku haddeer waxay samaynayeen aniga waxaan u arkaa inay haddeer qaboobaayeen oo si maslaxada oo madaxweyne lahaayeen ma fahamti haddaysan inta hub qaato dad layn oo aysan dhibaato ka shaqayn inay fiican yihiin waxaana fiicantao taas in dadku islaayo oo dadku isdilo waxa ka fiican inaan dadku isdilina si fiican maaragtay sidaas ay haddeer u wajaheen oo cabashada waxaa kuu soo haray xildhibaano macquula oo dadku sharaftooda kusoo doorteen oo dadnimo ay dadkooda ku difaacaan le maahan xildhibaanada u joogaa sababta keenayso loo beegsadeen waa sidaas xildhibaano laarishacuna oo leefleef goobaya oo darajo iyo kursiga lagu siinaya goobaya wey hadday dadkooda unaxayaan inta loogu yimaado xerada dabdamiska laguma dhex toogtoogteen xildhibaanadu way tageen arrintanna way ka hadleen waxayna sheegeen in dabdamiska dadkan ay deganaan doonaan ilaa dhammaan dhulalka dawladdu ay leedahay dadka laga saarayo waxa weeye sax intaas kuma filna waxa kale oo ku soo haray mid kale oo ka sii qosol badan aan ku sheegaya nimankii meesha lagu soo dilay waxa weeye askartii dishay way iska soo tagtaa la igu yiri anigu hadda goobjoog ma aanan ahayn markay iska soo degtay waxaa la yiri askarigii waxaan aniga laakiin niman mas'uuliyiin weydiiyoon ninkaan askariga ah ninkaan qoriga sito askariga ah waliba ninka askariga uu ahaa ninkii la dilay ninkii dilay maxaa laga yeelay maalin walbaba ma fahamtay kawaankaas waxa weeye dadku waa dhooban yihiin oo ma fahamtay maalin walbaba midaan aqaano iyo midaan aabihiis aqaanaa maalin walbaba kawaanka taagan oo la toogtaa war dadkan keligood dambiga galaaho waa maxay dad keligood dambi gala oo keligood la tooganayo maalin walba midaan weydiiyo waxaan war sidaan maxay ku dhacay markaas maxkamadda looma joogo nin guryo dhistay dabaqyahan haddeer ka hor weydiiyo wuxuu yidhi dabaqyadan waxaa la yidhaha ha iga dilin iyo imaandhow iidaa ha iga dilin waxa weeye waa dabaqa waxaa la yidhi qurxoon oo lacag fara badana lagu baxsho kaas ha iga dilin uu ahaayo laaluushkiisaa badnaa maandhow iidaana ma fahamtay waa midka xoogaa ka gaaban oo guriga yaroo ka gaaban marka waxaan idhi waa ninka sidaas la yidhi waa la ii sheego ninkii maxkamadda hore oo joogi jiray maaragtay ciidamada magaciisu sidaas ahaa ha iga dilin iyo hiidaa guryaha ohu dhista mid kasta ma fahamtay nin kastaba isagoo qaawan u yimaadaa asbuuc ka bacdina dabaqayuu leeyahy wiilasha yaryarka ah oo saraakiisha qaarkood midaan dabaq lahayn uma jiro waxaa laga dhisanayo waa dhulka iyo waxaa la boobayo dhulkana waxaa loogu dirayaa marka dhulka la banaynayo wiilkaa loo diraya marka loo diro wiilkaan waa wiil dhulgooba waana loo sharciyeeyey dadka inuu maaragtay qorigiisa ku dili karo nin iska markii horena aan ilaahay ka baqayn isbaarana iska dhigan jiray askarinimadiisana aan la dhisin moraalkiisa iyo aqoontiisa inuu inta ordo iska soo dilo qof way u sahlanta marka in qof la dilo haddana markii qofkii la dilay la yiri ninkii la dilay wiil uu adeer u yahay ayaa la yiri isaga ninkaana dilay waa wax aad u fool waa wax maaragtay laga sii xumaado waayo marka aniga waxay ila muuqataa dalkan yaan dib loo celinin dalkan yaan dib loo rarin dadkan yaan dalka la iska horkeenin dadka xalku wuxuu ila muuqdaa madaxdu inay ka soo jeesato waxaas madaxdu inay albaabka dhulka xirto inay xirto albaabka musuq maasuqa inay xirto albaabka raashin raadi darajo goobka iyo waxaasa madaxdu inay usoo jeesato dalkii cadow waa usoo hanqal taagay cadow waa qaadanaya maanta markay marayso lug haya ilaa seylacan isku xiranaya oo ay marayso ma fahamtay baabuurka ka soo baxay arbacamiski waa inuu maaragtay yimaado seylac yimaado
waxa weeye Soomaaliya ma sii jiri karto sidaas daraadeed si dalka loo badbaadsho waa in qof kastoo Soomaaliya maanta waxaan nahay ilaa 12 milyan waa dhan 12 milyan waa in hubkii aan ku dagaalami lahayn naloo goobo oo naloo raadso Masar hadday wax noo tarayso hub xoogaa way haysataa istorada ugu jira hubkaas inay nasiido dadka naga shacabka tababarano Ethiopia inaan ku dhaqaajino wax kale inaysan madaxdu waqti ku lumin hadduu taariikh rabo waayo hadduu taariikh rabin oo hadda uu iska rabay maaragtay inuu maaragtay wixiisaan oo hadda walaaqanayo madaxweynuhu walaaqdo dee waxay ku socotaa meesha ay ku socotaa waa dareemi kartiin